marka xilli ayaa wax lagu qiyaasaa in waddankan Ireland dadkiisu ay u baaba'een waxaa la dhahaa waxaa ku dhintay tusaale ahaan marka 3 loo qaybiyo qayb dadkiisa ka mid ah ayaa baaba'ay. Okay guys, now waxaan joogaa caasimadda waddanka Ireland ee Dublin. Barnaamijka ayaan taaganahay. Waxaan rabaa inaan magaalada si u taalo soo arko. Waddankan Soomaali badan ma degano laakiin sanadihii u dambeeyay Soomaali badan oo Yurub ka soo guurtay ayaa soo gashay. Waxaan rabaa markii inaan ogaado waddankani miyuu ka duwan yahay wadamada kaleeto sida Sweden, Norway iyo Denmark wadamada Scandinavian-ka. Haddii uu ka duwan yahay muxuu uga duwan yahay? Let us find out. Yes, حاجة محاولة مقاييس Soomaalida miya? Okay. marka caddi baa la yiraahdaa Soomaalida inta ugu badan baad maanta. Wax ka cunto. So that's true. Ganaha shiishi iyo leey. goobtan hadda aan ku suganahay waxa weeyaan centerka magaalada waxaana loo yaqaanaa Pin Tower Soomaalidu waxay tiraahdaa birta dheer magaalada marka dhex lugeynaysid waxaad ku arkaysaa dhismooyin qadiimiya oo xilli hore la dhisay basaskeedu waa sida London oo kaleeto waxay qabaan bas 2 dabaq ah baska wax ku qurux badan yahay kor markaad fuusho waxa waaye waxaad ka daawanaysaa magaalada sidoo kale tariimanka magaaladan waxa weeyaan gudaha tariin fiican aan ku arkay laakiin kaliya magaalada gudaheeda inuu ka shaqeeyo ay la tahay ma hubo gobolka kale inuu aado laakiin airportka ilaa iyo laga imaanayay magaalada gudaheeda ama taxi ama bus baa ku keenayo marka sida Yurubta oo kale to malahan yacna tariiman casri oo meel walba aada underground iyo waxyaabahaas malahan magaaladu waa magaalo aan baraf lahayn oo sida magaalooyinka sida Oslo iyo maxay ahayd magaalooyin kale Scandinavian-ka malahan baraf waa magaalo roobabaabeed haddii aad waxa waaye roobka aad isjeclaynaha Dublin ma noqon doonto meeshii aad ku noolaa lahayd maxaa yeelay mar kasto waxaad filanaysaa roob ayadoo jawigu qorrax kugu jirto ayaa waxaad arkaysaa roob soo da'ay marka dad walba daladii wataan meeshan markii aan imaanahay war mu ahayn roob waa maqlay laakiin deena saa'id tahay mu maleynay marka muuqaalkan inta duuba xataa marar badan roob imaaday maalmo kala duwan aan duubay webigan arkaysan waa webi magaalada kala qaybiyo dhanka kala Dublin 2 weeyaan dhankaas way ka qurux badan tahay Dublin 1 waa qadiimi Dublin 1 markaa fiirisid laakiin Dublin 2 way ka cusub tahay wayna ka dhismayaal qurux badan tahay Dublin 1 magaaladan waxa waaye dadka ku nool guryaha ayaa ciriiri ku ah aad iyo aad guryaha ciriiri u yihiin waxa waaye dadka waxa la dejiyay hoteelo sidoo kale waxa la dejiyay goobaha iskuulada loo baneeyay marka Dublin waxa hadda cilada ugu weyn ka jirta waxa waaye guri la'aan hadii waxa waaye Dublin imaanaysi ku soo talagal guri la'aan ay talooyinkan oo dhan waxay u taagan yihiin waqti waxaa jirto waddankan ay u baaba'een gaajo iyo maxaa isugu darsamay cudurro marka xilli ayaa wax lagu qiyaasaa in waddankan Ireland dadkiisu ay u baaba'een waxaa la dhahaa waxaa ku dhintay tusaale ahaan marka 3 loo qaybiyo qayb dadkiisa ka mid ah ayaa baaba'ay waqtigaas Ingiriiska wax caawinaadaha muusan u geysanin kadib maxaa dhalatay kacdoonkii Ireland ay isaga xoreynayeen gumeystihii markaa dul saarnay Ingiriiska maadaama waddanka baahi ay ka dhacday dad badan ay dhinteen baaba'een Ingiriisku markaa waxa waaye dhig jira umuusan siinin wuxuu xooga saaray kala qaybintooda marka nationalistaha xoogiisa wax sii caawiyay kadib markii ay ku dhacday baahida sanamyadan oo dhan waxay muujinayaan dadka baahida gaajada qaar dhagxaan caloosh ku sito qaar maxay ahayd taabaan Ingiriiska la hadda wuxuu ka haystaa Northern Ireland oo ka haystaa halka Ireland weyn ay xagan ay tahay marka sidoo kale Ingiriisku wuxuu la dagaalamay luqadii Irishka ahayd Ireland English ayaa hadda looga hadlaa luqad kale way leeyihiin laakiin luqadaasi waxa waaye hadda lama tixgeliyo so waa aynkaas dadkan rafaad ay soo mareen saas awgeed dadka soo galootiga ah ma dhibaateeyaan
guys buundadan hadda iga dambayso waxaa lagu magacaabaa Hayban lagu magacaabaa buundadan markii horeeto dadku waxay ku goy jireen sentiya la dhiibi jiray si ay dadku dhanka kale webiga kaga tilaabaan xaggan waxa ku yaala waa webi magaalada kala qaybiyo marka waxa waaye dadku si ay uga tilaabaan buundadan ayaa waxa waaye lacag yar ay bixi jireen jaranjaro ay ka samaysantaa buundada haddii aad kurtid so waxa waaye buundo taariikhi ku leh waayo caasimadda waddanka Dublin haddii aad Dublin mar timaado of course ana buundadan soo buuqata maxaa yeelay waxa ay ku xasuusinaysaa ama ay u taagan tahay waqtiyadii hore buundooyinka la dhisay ayay ka mid tahay guys meeshan saarkaysan waxa lagu magacaabaa Temple Bar waxa waaye meelaha ugu qadiimsan waddankan ay ka mid tahay waddankan wuxuu caan ku yahay bahalka lagu magacaabo khamriga ina xayisiina ma ahan laakiin waddan walba waxa uu caan ku yahay Soomaaliya Ireland hadda maqashin inta ugu badan waxay caan ku yihiin khamri meeshan iga dambaysan dhan waa kalaabo dadkana saas ay ugu badan yihiin meelaha kalena dadka kuma badno marka la soco Ireland hadda timaado inaad la arkaysid too much bar yaani waddanka waxa laga yaabaa laba ku badan kaniisadaha iyo baararka ayaa ku badan guys sida ogtiin waxaan ku suganahay Dublin caasimadda waddanka Ireland Dublin waxa degan Soomaali markii dambe ku soo badatay markii hore Soomaalida kumay badnayn laakiin hadda Soomaalida waa ay ku soo badatay waliba sanadihii u dambeeyay waddanka waxa way dhaqaalihiisa kor ayuu u socdaa sidoo kaleeto wadamadii Scandinavian-ka khaasatan Sweden oo markii hore ahaday laakiin waddanka markii timaado Scandinavian-ka wadamada ugu furfuran social amal iska ah ayaa markii dambe waxa qabsaday xisbi cunsuri ah marka waxay noqotay hal kala yaaco inkastoo Norway iyo Sweden horay xisbiyadaasi ay u haysteen marka Ireland waa waddan hadda soo kacayo Soomaalidana sidaas ayay ugu soo badatay qodobka xigana waxa waaye dadka Ireland khaasatan Irishka ah waa dad furfuran waxa waaye inkastoo ay isticmaalaan balwada ay saayid u isticmaalaan khaasatan khamriga ay saayid u cabaan haddana dad furfuran oo dadka la sheekaysan wayna soo dhaweeyeen dadka Soomaalida ay xaggan ku nool caasimadan marka waxaan u imaaday inaan soo ogaado xaaladeeda dad badan oo Soomaaliya ayaa ku nool dhalinyaro badan la kulmay waxa waaye caasimadeedana waa qadiimi halka cilada jirta marka waxa waaye Ireland guriyaheeda ayaa aad iyo aad ciriiri u ah waxana adag si qofku uu guri ku helo ayaa adag xagga shaqada fursado fiican ayaa yaalo shaqadeeda waa hore laga helaa laakiin qofku haddii uusan mar meel uu seexdo uusan haysanin waxa waaye shaqadu macna saasa muu soo kordhinayso sida aan xoga ka soo dhexday dawladdu waxay ku mashquulsantahay inay guriyo badan dhisto maybe future-kina uu soo guuri doono markii guriyo badan oo qurux badan la dhiso ayaan u soo guuri doonaa haddii Ilaahay yiraahdo laakiin hadda waxa waaye waan imaaday waxayna iga ahaaday inaan soo ogaado xaaladeeda waddankan waxa waaye waxa dagaal fara badan oo dhex maray waddanka Ingiriiska ayuu aad iyo aad dagaal u dhex maray xilligii Norman invasion-ka ahaaday like boqortooyada Ingiriiska xaggan gumaysan jirtay sidoo kale waddanka laba loo qaybiyay oo waxa waaye Northern Ireland iyo Ireland caadiga weeyaan haddii aadan hore u ogeyn Ireland waxa waaye jasiirad waxa ku hareeraysan badda Atlantic Ocean ku hareeraysan fahanteen gibi ahaan buu ku hareeraysan tahay marka waa jasiirad aad iyo aad u weyn marka laga yimaado Ingiriiska san jeclahay waa jasiirad weyn so Ireland waa waddan furfuran haddii aad imaanaysidna waddan waxa waaye aad ka filanaysid koow cilada koobaad waxa waaye guri la'aan haddaad guri hesho nolol qurux badan ku noolaanaysaa so Ireland ku soo dhawaada thank you so much